الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، وحواجبكم أقف كستو مسلمة inuu ogaado dantiisu inay ku jirto samaynta waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u diray iyo deynta iyo ka fogaanshaha waxa Allah abuuray u diiday. waxa waajib ku ah qof kasta oo muslima arinta noocaasi markay noqoto aqeeda qalbiga u fadhida inuu ku dhiso noloshiisa oo dhan waxiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala rasuulka uu ku soo dejiyay. ففي هذا سعادته في الدارين هدي قفك نولشيسا وكردغا مid ku salaysan waxyiga waxa uu ku gaaraya nolol wanaagsan inta uu joogo daarta adduunyo iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka la horgeeyo. waxa waajib ku ah qof kasta oo muslima arrimihiisa oo dhan inuu celiyo ila Allah subxaanahu wa ta'aala wa ila sharcihi wa diinihi إلهي دينتي سي شرعيس ووحا حاران اكتيسا كاهي ونقضو وحا إلهي سبحانه وتعالى وديده وكممنوعي وحا اكتيسا حلال كاهي ونقضو وحا إلهي سبحانه وتعالى وحلالي وحا واجبكو أقف كستو مسلمة إنو كدكتون هذا الراعتانكا دونست نفتيسا خلاف سن دونست ربي سبحانه وتعالى iyo naftu jacaylka ay jeceshahay samaynta xaaraanta arinta noocaasi haddii adoonku ku dadaali waayo waxay ka fogeynaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanay ka luminaysaa wadada saxda ah waxaanay kula dhamaanaysaa oo ay kula daadegaysaa naarta jahannama ciyaadan billah. arrimahaasi waxaa gaari karo qura man jahada nafsahu fillah qof naftiisa Ilaahay daraadii ula jihaaday oo kula jihaaday wadada xaqa inay marto kana xakameeyay wax kasta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cadhaysiinaya oo Ilaahay adoomihiisa u diiday. ayuha almuslimuuna cibaadallah, waxaa ka mid ah hawa raacitaanka iyo nafta in loo yeelo waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka xaaraantimeeyay heesaha oo la tiriyo أما بس اللي دقيسته وشيء منعه الله في كتابه وحذر منه نبينا في سنته وبين عواقبه الوخيمة وشروره وفساده وآثاره السيئة على حياة الإنسان على قلبه وعلى جوارحه وعلى عمله وأخلاقه. هيصه ووحي إلهي سبحانه وتعالى دومه سوك ممنوعي. آية القرآن أبو إلهي كعدي نبي محمد با عليه الصلاة والسلام من بدن كدقي وعدي راتك حناي كل ينقفك قلب كيسة عمل كيسة حبنهيسة أخلاق ديسة يدقن كيسة نولشيسة قودهان عدبت حنا كدلتا دويدا انت لتشوقه يا آخر إلهي سبحانه وتعالى مال انت الله ارتقه. إلهي بأوحد ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ضدك وحا كميدا كوكو بدلنا ايه حقية دينتي إلهي وسودتي إلهي وفرين دقيستان إنه يكو قولان يكو هضلان إنه قلوب تودا وقراحيان إنه راعان يكو عمل فلان كوكو بدلنا له الحديث له الحديث وهذا الكستو باطلة وهيسوهنا الليسكي سمير سرايك جيران. أرنتاسين الجهل تايبو الشيء إلهي سبحانه وتعالى إنه قفك حقي كتغو هيساه وكراعه وجهل بالله وبعظمته وما يجب له من الحقوق وجهل أدون كالصدايا لي إلهي وكغسو غيهي يا إلهي وينديسة يا إلهي سبحانه وتعالى حقوق دا أدومه سو كل يهي وجهل بأمر الله ونهيه وجهل أدونكو كغسو غيهي إلهي أمر كي سيديد مديسة
وجهل أدونكو كغسوغن يهي عربت حنا رنتاسي أي ليدهي وجهل أدونكو كغسوغن يهي ما أعد الله لأصحاب ذلك من سخطه وعقابه وحي إلهي ودياري ددك هيسة أما هيسها دقيسته وإلهي سبحانه وتعالى عرديسة هي عقاب كيسة ويتخذها هزوا دال يتشيس بو كدغانيا dad baa laga waaninaya oo aayaadkii loo sheegay xadiisi rasuulka markaas laga yaabaa iska daayinay daayaane ilaahay hadalkiisa ku dheeldheelaan iyo xadiisi rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo cidda uu sheegaysa ulaa'ika lahum cadaabun muhiin ilaahay uu cadeeyay arintaasi natiijada xun ay leedahay waxa sugaayo qofka sida yeela cadaab duleeya oo noqdo mid xaqiran oo hooseeya marka la galiyo wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inta dabadeed tilmaamay qofka heesaha tiriya ama dhageystay qalbigiisa ay ka buuxaan quraanka qalbigiisu inuu ka sii jeedo dhageysa hadii la yiraahdo ma dhageysanaayo hadii lagu waaniyo maqli maayo haduu maqlana qalbigiisu jeclaysan maayo ku raaxaysan maayo kuna nasan maayo wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbira كان لم يسمعها إلهي آيات كيسا مركا لقدو الآخريو إلا هيسا قلبي كيسا فسهادي يوحا كذا شيء وحنقون يا سيدي وشيسنا يا سيدي ميدان مقلبا كان في أذنيه وقرا واحد مودردقيه سحقرين وكوغوان يهي فبشره بعذاب أليم ومرلبات كسيدا يالا واحد وقب شاريسا عذاب آدياد وحنوتشيه إلهي كتاب كيسا مركا الله فسرايه قف ولبا سيدا يساقو جعليهي إيا سيدا يولم وقتل قروح بدن إنو كفسرا مبنانا قرآن كايا فسره نبي محمد با عليه الصلاة والسلام قرآن كاين بدن وكمدا ومد ومعنيي قرآن كتفسير كيسا وحلوات دبا فريسانيا كوي قوب جوغ وها مركي وسودقاي عيد والبنك يقاني اللغة عربي ده نبي محمد دار ديدي ساها آيات كستواني فهمين نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويدين شري ما حيكون فسرين له الحديث كه وحيكون فسرين هذا الكستوى باطلة مركة كوات وحاني سيجارة تسالة وقبحيين وهذا الكبادل كيسة فوشح كمدا هي صحة وحول التابعي قال له شري أبو السهباء سألت عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ابن مسعود بانكور وحديث فسرتا له الحديث فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها 3 مرات إلهي وكدارت وحن كدارت بويري الله مد حق لغو عابدان وشيرين إساق مويانه له الحديث كواه صحة صدح جربان كعلي وعبد الله بن مسعود صحابتي قرآن يا تفسير كيسا ويقاني أيو كميدها وحدي ما جرت آيات نبي محمد لغو سودتشيي وأنا قرنا هين صابتا أي كسودكتي يا ميشا أي كسودكتي هدانو قال لها قف قرآن كايغا يقانا وشوغا ميل جيل لغو قاري كرو سفر عدك بانو قلي لها بول سيان قفكا وقسو فائديستو واحد تفسير كانوا عاسا كوافقي عالمك أمده يترجمه قرآنك إني محمد الدعي وعبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن عمر وحلم إذا يسقون عبد الله بن عمر أي مدى التابعين تا صحابة الرسول كاردي دوها إلا هو الحديث كإلهي دلعيه سا كفصيري تردو دمكو بكرنه قفك الدونانا وقال كتب تفسيرك ستفسير ابن جرير الطبري الكواهد فسيرايه إيه تفسيرك ابن كثير مرلبات إلهي سبحانه وتعالى وحاوها ساكو مقعاب صوت الشيطان عدك إيه دواق الشيطانك إلهي الشيء ودون يفعل حمدي سينو موتشيو وحوا الدوامها إلهي وقشيقا إنو الشيء سيهاي شيء الشيطانك حديد لله قفك هرمرايا قفك تكنايا أي رسولك يقول إنما هو الشيطان أرنتا فالحمد إذا الربا ومدن الله موتشيه رسول كان عليه أفضل الصلاة والتسليم
إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوكسو دجيي تصاليال أرنت نوع عاصية الماما هي وطار رسولك عليه الصلاة والسلام وكدل الشديبات شرع إلهي مركو سورين يجيتك لراء الزقوب عنستي سلقوا عقابي دون أهل النار محو إلهي كتسالي كأنه رؤوس الشياطين مدح شيدان بعد مدة فول حمديس هيسا إلهي مركو الضواني حمان تودا إيا فول حمدودا إيا دباتدودا ومدين وموتيو وحي إلهي شاقي الصوت رواق شيدان إليهين قال الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وحد كدت ستا بني آدمك صوت كاغا دواق كاغا وحد كوير ارتاعيدا كاغا كوا قاديد كسارا يا كوا لقطة بين ويبوه كوا إلهي دواقي سديدي ربنا أمر كيس الراعي واي شيطان وحو يبوه يا بني آدم ووحو كدقايو يلقويو هيسو إليه صوت الشيطان رسولك عليه الصلاة والسلام اكتي سالك الشاقة أبو بكر مالين توصوك علي لبها بلوضو قيرارية ورسولك عليه الصلاة والسلام اكتوغا مالين عيدة ميانو أوران أمزامير الشياطين عند رسول الله من دواقي يعدك الشيطان كاد كوهيسان رسولك إلهي اكتيس وأبو بكر رضي الله عنه قاطع إن قرار إيو قبي إيو دمانا يسكو حكم يهين رسولك وحو الشيخ عليه الصلاة والسلام قرارك دمركو أي تريان مالمها عيد يا وقت يدا فرحدا هذا الكيسنا أما مريه سناني حمين إسلامركا وحلو قراعي والله تمياناني تشيرين موسيقى وحلميدا إنانو حارانا هاي لكن هيسوه أصلهان عد شيدانين يهين أرنتا رسولك أبو بكر وكو قلاده عائشة رضي الله عنها وأبو بكر ننتيسي وحاسكي نبي محمد وأم المؤمنين وحياهد عالمت كم يدع علماء ومدى إسلامك هبلا يدوتها هيولا فرسميي أي وحا الله كاني نن مغنية وذاتك قال يراهدين هوها يسعو هيستها كو إلا وسيي حنونك markaasay u soo gashay isagoo isruuxaayo heesaaya tima dheerna wuu leeyahayo marba dhinacu rogmaaya markaasoo waxay tidhi uffin shaytaanun akhrijuuh uff waa shaydaan saara bay tidhi muxuu shaydaan ku noqda waa bani aadame oo waxa uu tirinaayey iyo heestaasi uu akhrinaayey ee isruuxitaanka iyo jaaskuna ula socda labadaasina inta badan ma kala hadhaan مجاهد وأردقي عبد الله بن عباس قرآن كودن بان عبد الله بن عباس كدو الآخرية بولي آيات الله والبوانك توتشي وحنا بلي فسر محالوغا تشيدا وليبا لبات شيربان وبندقي بولي مصحف كعبد الله بن عباس وحيري صوت الشيطان صوته والغناء والباطل وهي صها يدواك كسته وباطله waxaan filayaa qofka muuminka ah labada aayadood inay ku filan yihiin ee saxaabadii rasuulkuna sidaas ay u fasireen aayado kale badan oo macnaha tilmaamayana waa jiraan aynu u nibaadna nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuulku ilaahay inoo soo diray soo inoo tusiyo wadada jannada oo inoogu tilmaamo arrin kastoo khayr inoo leh oo inooga digo arrin kaste oo shar iyo foolxumo iyo dhibaato inoo leh نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومديس سيادك بوغا قدقا هيصح وحانو عديي عربت حن يا إليهين لبدا دارود دارتنا الدنيا تاخربا وحو رسولك الشاقي قفك هيسيا دواقي سوينو يهي الصوت نعضلا حق إلهي لغا نعضلي هدي دواقي ونعضلي يهي كي دواقينا محاضو مالين اسنوا نعضلي يهي كدقا يستينا والله مد نعدشونا وحكلا معها ومعناه وحو كحكم يهي إلهي نحرستي سين لغا فوقيه قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة
laba dhawaaq way nacdalayin adduunya aakhiraba khayrkeena xariista ilaahay way ka fog yihiin mizmaarun cinda nicma muusig la garaaco nicma markay jirto aroos farxad ciid xaflad kale jaamacad laga qalin jabinayo iskuul qof la sii sagootiyayo safraya wax lagu faraxsan yahay markuu dhaco ilmo dhashay sawd muusig oo baxaa waa majlabatun lilacnati illaahi subxaana wa tacaala nacdasha ilaahay mid soo hogaaminaya weeye warannatun cinda musiiba iyo baroor iyo qaylo iyaduna baxda musiiba markay dhacay sida geeridoo kale bazaar baa wariyey waxasanahu lmaqdasiyu wasaxaxahu alimaamu alalbaniyu raximahu llah culimaduna xadiidka waxay u daliishadeen heesu inay xaaraan yihiin iyo weliba inay yihiin min alkabaa'ir dembiyada waaweyn kuwa ka mid ah mar haddii nacdasha ilaahay ay sababayaan qaala shaykhu lislaam raximah llah hada alxadiidu min ajwadi ma yuxtaju bihi cala taxriimi alghinaa xadiidkan wuxuu ka mid yahay adilada ugu fiican ee loo daliishado heesu inay xaaraan yihiin aswaatu lmuqaniin kuwa heesa rag iyo dumar dhawaaqoodu uu nacdalo yahay iyagana nacdasha ilaahay baa ku socota ilaa ilaahay u toobad keenayaan waa kuwa ka fog ilaahay raxmadiisa ilaa ay dembigaa ka soo noqonayaan cidda dhegaysataana iyaga ayay la xukum yihiin wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam hada min calaamaati nubuwati waa calaamad ka mid a calaamadaha nebinimadiisa ummadiisa aakhirkeeda ama qeybteeda dambe in heesaha iyo qalabkan loo garaaca aada uga dhex muuqan doono waxaanu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa natiijada xun iyo ciqaabka ilaahigee ka dhalanaya arrintaa inagu maanta waynu aragnaa waxaanay calaamad iyo daliil u tahay inuu qiyaamihii soo dhowaaday waynaga arkayna qalabkii heesaha oo dukaama adduunyada dusheeda looga samaystay garabka dadka qaar uu sudhay ee ku xaragoonayaan iyadoo dadka qaarkood ay ku faanayaan inay yihiin hoballo kuwa kalena ay ku faaninayaan hada min acjabi alumuur ma waxaynu ku faanno kale ayaynu weyni rag waaweyn oo mararka qaarkood mas-uuliyad iyo manaasib waddankan ka qabtay ayaa intay qalinkooda qaateen waxay meelaha aadka loo akhriyo ku soo qoreen xidigaha geesku waayo xidigaha geesku waa inama iyo hablo heesa oo weliba suxunu heesa waa waxaynu dheernahay geeska afrika oo dhan yacni waa manqabatun lana ya ahla somalilan sharaf iyo magac bay noo tahay weeye haddaynu nahay reer somalilan sidaasi ayay u daahireen waata laga baafinayo ee laga xayeysiinayo idaacadaha iyo tiifiyada ee la leeyahay xidigihii geeska hoballadii reer hebel ayaa heesi doone u kaalaya tacaalow ilaa lacnati illaah litakunuu min almalcuuniin ilaahay nacdashiisa u kaalay wey si aad uga mid noqotaan kuwa uu rasuulku sheegay nacdasha ilahay inay ku dhacayso qaala calayhi salaatu wasalaam fii hadihi lumma khasfun wamaskun waqadfun ummaddan dhexeeda waxaa ka dhici doona khasf dhulgoyn qaar baa dhulka lala jari doona wahada naraahu kaiiran alyowm maanta in badan baynu aragnaa wamaskun qaar baa la doorin doonaa doorintuna qalbigay ka bilaabanta qofka qalbigiisa marka hore la doorinaya oo wixii foolxumaaba la qurux badnaanaya wixii xumaaba la wanaagsanaanaya wixii wanaagsanaana wuu la xumaanaya marka dambana waxay u soo gudbaysaa jidhkiisa waqadfun samada in laga soo shiido oo shiid ciqaabi samada uu kaga yimaado faqaala rajulu min almuslimiina ya rasuula allahi mataa daak asaxaabatu kaanuu cuqalaa waculamaa ahla iimaanin wasalaax nin muslimiinta ka mid oo saxaabada ka mid ah wuxuu yidhi rasuulka ilaahu taasi goormay dhacaysaa sabab laa inaanay dhacahayn bay garanayeen qaala idaa daharat alqaynaat hablaha heesa berigii hore addoomuun baa heesi jiray inaan xorimee heesi jirin hablaha addoomaha ee heesaa markay ummadda ka dhex muuqdaan maanta meel walba sawirkoodii baa ku yaala iyagoo qaawan iyagoo tima qaawan iyagoo masraxyada taagan oo isruxaaya oo rag aanay waxba isu ahayn oo xaasnimo iyo maxramnimo toona aanay ka dhaxayn iyagoo isku loo haaya oo waxa weeyaan ku dheggan oo ishor ruxaaya way muuqatay taasi
cadaabkii ilaahay un weeyaan waxa la sugaa ee noociisu ahaa ka uu sheegay rasuulku meelo ka mida casrigan iyo adduunyadan aynu joognana arrintaas way ka dhacday walmacaazif almacaazif waxaa la dhahaa qalabkan loo garaaco heesaha noocyadiisa kala duwan dhammaantood magacaasay hoos imanayaan wa shuribat alkhumuur khamrigana la cabo wa bimacnaa bannaanka loola soo baxo dukaamadaa lagu iibinayaa oo kuwii cabbay ama doonaya inay cabbaan la xishoon maayaana bannaanka ay ula soo baxayaan tirmidi baa xadiidkaa wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa sheegay dad heesaha dayn waayey iyo xumaano kale oo rasuulku uu meel la dhigay in la maskhin doono suuradooda la bedeli doono wuxuu uhi rasuulku layakuunanna min ummati aqwaaman yastaxilluuna alxira walxariira walmacaazif walkhamra walmacaazif ummaddayda waxaa ka mid ahaan doona kuwa xalaashada zinada iyo xariirta iyo khamriga iyo qalabka heesaha loo garaaco xalaashada macnaheedu waa maxay ma waxaan xaaraan ahayn baa la odhan karaa way xalaashadeen waxay daliil u tahay intuba inay xaaraan yihiin soo ma arkaysid heesta iyo waxaa loo tumo waxa uu rasuulku meel la dhigay wuxuu meel la dhigay zino waayo zinaday sabab u noqdaan heesuhu wuxuu meel la dhigay xariirta ay raggu xidhaan waayo waa isqurxin iyaduna xaaraana wuxuu meel la dhigay khamriga lianna alghinaa yanuubu can alkhamr heestu waxay geli kartaa oo ay buuxin kartaa kaalinta khamriga dad baa mirqaamaya mar allaaliya marka lagu dhufto qaar baa miyir beelayaboo dhulka laga qaadaya qaar baa la odhanayaa hebel wuu baar caddeeyey macnaheedu waa maxay wuu mirqaamay markii heesta lagu dhuftay iyo ciyaarta dabeetana sidii wax waalan oo isdhaafay buu noqday sida qofka khamriga cabbay oo kale wala yanzilanna aqwaamun ilaa janbi calam هذا خبر من محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق وورو نو شيغي نبي محمد وركي سو دمين ور دد با waxay deegi doonaan buur dhinaceen yaruuxu calayhim bisaarihati lahum waxa ninka xoolaha u raaca uu ku soo caraabin doona xoolahooda habeen bay isu soo hoyan doonaan yaatihim yani alfaqir lihaaja waxa uu imanaya qof baahan oo baahi u keento wax weydiisanaya فيقول ارجع إلينا غدا وحيكون دونان بريبان وحكسين دونان إنه كالي فيأتيهم الله نعم فيبيتهم الله إلهي بان مرايا حولي با وسوهيدا يقولوا ويسوهيدا إلهي بان مرايا ويضع العالم بورت إلهي كدو منيا ويمسخ آخرين قردة وخنازير kuwa kalena ilaahay suuradoodu bedelaya suurada yar iyo doofaar buu yeelaya ila yawm alqiyaama maada fa'ala haula maxay sameeyeen kuwaasi waxay sameeyeen waxa xadiidka xaqiisa hore lagu sheegay ayaa ciqaabka noocaasa sabab u noqday wa saxaabadii rasuulku ridwaanullaahi calayhim maanta rag baa jaraa'idka ku soo qoraaya oo hablaha iyo inamada muslimiinta ugu baaqaya heesaha qaawan الأغاني الخليعة هيصاها ما أنت الله تريا ما كوا إيمان كردنا يا كوا الله عبسي كردنا يا الله كعبسي ما كوا حشاد لقى قاضيا ما كوا آداب دت كوا زيادنا يا ما عقلي بي كردنا يا ما حكمة بالغ زياد سنيا الجواب كلا جواب توا مايا وحي كردنا يا وامحي ووحي إن شاء الله تعالى ينشيق دونه دت كنا يوجهين وحي كردنا يا وحنون قلبي كردعا وإيمان ضعيفة وحشو ضره وشهوات كردون ملح لا آدو وحي كردنا يا ورقي الدمر اسمح قالوا وحباني صاهين وحي كردنا يا واقاونان وحي كردنا يا وشري فساد تصير رج شرايد ككسو قريان وحلال نفينا وراحية يا سبحان الله والله هؤلاء ما هم بالناصحين إلهي بان كدارته كواسيناني ونا كتلين وأنا ضدك wanaagooda ka talin oo dadka wixii anfacayaana u sheegin bal shariya fasaad bay ugu yeedheen kuwa noocaas waxa laga yaabaa qaarkood inaanay ogolayn hablahoodu inay kuwa ku biiraan waanay dhacday nin kamida ragga ku baaqa heesaha jaraayida ku soo qareera Ghazali baa ogolaaday man al-Ghazali ilaahay baa diiday oo nabi maxamed baa diiday
وابن عباس بعد ديدي وابن عمر بعد ديدو أبو بكر بعد ديدو عائشة ديدي وصحابة الرسول كردنا أياد ديدي مركز لسو تاجنت غزالي بأقول من الغزالي في جنب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة ولم يكن عنده علم بالحديث حديث كان علمي يقون مولهين وحلق يابا حديثا بينانو أرقبا واني قارنبا وحل ويدي ننكا ننبا كعياري وحكيري إن انتادي وحنو قانين آدي أدعوت في عنتهاي marka waxaanu ku daray kooxaan u tababarayna heesaha fanaaniinta cusub ee aynu rabno hadda inaynu soo saaro si ay umada qulubtooda ugu raaxeeyaan ayaanu inantaadii u qorsheynayna ku daro xanaaq buu cirka maray ya subhanallah hablihii muslimiinta iyo inamadiina ugu yeedhay inantiisi markii la soo hadal qaaday la yiraahdo halka ha gashana aad iyo aad buu uga xanaaqay Abdullah ibn Abbas buu weydiiyay an xukm al-ghina xukm ka heesaha فقال إذا كان يوم القيامة فأين يكون الغناء في الجنة أم في النار سجل السؤال دي بقول علي والقيامه مركو دعو هي صها يوحى الصعودية هذا ما قشان ما واحد شناد اللي قال يا أبا مسوح نار اللي قال فقال في النار ننكو يريد النار بالقال فقال ابن عباس فاذهب لقد أفتيت نفسك فهو حرام هذا دبي ويدين السابور مرة ضد قرص النار اللي قال هذا فتوى نفتاضة حاران ويان وحادي ويديس علماء الإسلام نساسا يسقوا وافقين أبو حنيفة وحيري سماع الأغاني فسق والتلذذ به كفر حنفية وقالوا هذا باب كامر كلا تشوقه إلا دقيستا وفاسق نمو هدو غفكو كرا حيستنا وابكو قالوا بيابوني يكفر إمام مالك نوحيري إنما يفعله عندنا الفساق dad hagaagsanay Madiina kama heesan waxa heesa kuwa fusaaqada xumaantii macaasida lagu yaqaan وقال الإمام أحمد ينبت النفاق في القلب لا يعجبني قلبي النفاق به سوق بيران وهي عجب قالنا يا أنا قولها وانشعلها هي معها وقال الشافعي الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال سألت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أئمة الإسلام إن بدنوا كم ذا أي وحي كتبته هذا كقرين heesaha noocan ee sifadan lihi inay yihiin kuwa la isku waafaqsan yahay xaaraantinimadooda ayuha almuslimuuna cibaadallah ma inta qof muslimi uu maqlo adillada dabadeed aayaadka iyo xadiiska iyo saxaabadu waxa ay ka yiraahdeen ma inta loo muujiyo dabadeed foolxumada heesuha ay leeyihiin iyo sharka iyo macaasida iyo xumaanta ay wataan ayuu hees tirin doonaa ama base u dhageysan doona ama uu ogolaan doona gurigiisa in lagu dhageysto isagoo oo warkeeda haya wallahi la yaf'alu dhalika man kamula indahu al-iman al-wajib wallahi inaanu sida yeelahayn qof iimaankii ku waajibay uu dhameystiran yahay waxa sida yeeli karo qof aan iimaan lahayn ama qof iimaankiisu aad iyo aad u daciifay oo aanu taagu helin iimaankiisu iyo awood xumaantaas inuu ka celiyo إلهي نقبت باديو شركة هيصاها يعد ودبا مسلم كستولقو امتحامينا إلهي وحينو ويدينينا إنو فول حمدا رنتاس الليدها وتصيو قلبي سنة كتشيديو أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله قفك مسلم كعقلك بدن أريني هدي حتى كشك قشو وحيا أرينتا راد كده مراد حنبا إلا ذا مسراد وناكسن محالك كرر صدا محاك دلنا آية ما هو حنبا كدشا مسوح وناكسن هدي وبعد حتى هدانو هين آيات قرآن ومسألة ذاك هذا ليس أما حديث كعب مر هدي وعدات أرينكا sharkiisa iyo fasaadkiisa iyo dhibaatadiisu inay ka badan tahay waxa la waxa nafci lagu sheegi karo qofka muslimka uu ka dhaqaaqa oo inaanu ilaahay ogolayn baa u cadaata heesu maxay raad leeyihiin maxaa ka dhasha maxaa laga dheefaa maxaa laga faa'iidaa ilaahay nacdashiisa laga faa'iidaa waa ta koowaade daliilka arintaana waad maqasheen waxay sabab u noqdaan doorin qofka qalbiga kaga dhacda
وقلبي سوء indhabeelo وقلبي سوء wanaagga dhadhamin waayo وقلبي سوء noqdo mid mankuusa oo rogan oo khayraanu galahayn marka dambana masqiga iyo doorintaas waxay u soo wareegtaa qofka jirkiisa daliilkana waad maqasheen heesuu qalbigay fasahaadiyaan iimaankana way daciifiyaan nifaaqna qalbiga way ku beeraan ibnu mas'uud baa sidaa yidhi alghinaa'u yunbitu annifaaqa fi lqalb kama yunbitu almaa'u zarc ibnu lqayim baana fasiray falghinaa'u yufsidu lqalb heestu qalbigay fasahaadinaysaan faida fasada alqalbu haaja fi nnifaaq qalbiguna markuu fasahaaduu madoobaaduu kharibmo ee ilaahay uu ka fogaado khayrkana ka sii jeesto nifaaq buu isla oogsanayaa qalbigii oo markastoo iimaankaaga ay wax ka go-aan nifaaq baa bedelaaya ilaa iimaanku waa meesha uu ka baxo nifaaq gaalnimo ah marka dambe aada isugu guurto heesu waxay qofka ka dhigayaan mid faasiqa waddadii saxda ahayd ka leexday ilaahay taacadiisii la amray diiday oo ilaahay caasiyey waxay qofka ku darayaan ahlulfujuur walmacaasi ma aha macsiyo qura waa macsiyo macaasi badan wadata waa xumaano badani ay daba aguugayaan sidaad maqasheen imise xumaanood baa daba socda waa ka sheegay alimaamu maalik wakhtigii dadka wanaagsani ay joogeen waxaa heesi jiray un qof faasiqa iminkana waa sidii waxaad eegtaa bal dadka heesa iyo dadka ka agdhow fahum abcadu nnaasi can alistiqaamati waalkhayr waa dadka ugu fogaansho badan aada uga durugsan toosnaanta iyo khayrka daacada iyo cibaadada wa akharuhum fisqan wa fujuura waana dadka ugu macsiyo badan guud ahaan heesuhu waa daaciyatu zina ayay heesuhu ku baaqaan fudayl ibnu ciyaad wuxuu yidhi alghinaau ruqyatu zina alghinaa ama heesuhu waa dhambaalka zinadu ay iska soo horraysiiso waayo bal u fiirsa adigu heesu maxay ka hadlayaan inta badan fiihaa wasfu maxaasini nisaa dumarka quruxdooda iyo xubnahooda iyo mafaatintooda intaa la sifaynaya caashaq iyo jacayl iyo wax nin iyo gabadh aan waxba isu ahayn dhex maray ayay ka sheekaynayaan war waxaa natiijadeedu maxay noqonaysaa in zina lagu dhaco ayaa arrintaa natiijadeedu ay noqonaysaa dadkii wanaagsanaa taa way garteen bal waxaa gartay kuwa kufaara oo caqligooda iyo fitradooda ku gartay iyo tajaaribta nolosha xutay shaacir jaahiliya buu ahaa nin martiyabaa u soo hoyday markuu dhergiyey ardaagii isagoo fadhiyuu la soo baxay cuudkii wuxuu bilaabay inuu tumo oo u heeso xutay ayaa u yimi wuxuu ku yidhi ninkaagan martidaayo ama waxaa iga jooji inan baa guriga ii joogtee ama dhaqaaji oo hore u sii soco inantiisu u diidaya heesta inay maqasho famaa baaluka bimuslimin yu'minu billah wa bilyawmi alaakhir yaziid alkhaliifa yaziid ibnu lwaliid wuxuu la dardaarmay tolkii oo reer banu umaya yaa bani umaya iyaakum walghinaa oo reer banu umaya oo heesaha iska ilaaliya fa innahu yunqisu alxayaa kow heesuu xishoodkay nuqsaamiyaan marka dambana meeshay ka saaraan way xishoodku iimaanku raacayaan heesuna iimaankay la dagaal wayaziidu fi shahwa heestu shahwaday kordhisaa wayahdimu lmuruu'a qofka xataa dadnimada iyo damiirka iyo inuu noqdo qof wax dhowranaya ayay ka dumisaa wainahu la yanubu can alkhamr wayafcalu maa yafcalu sukru khamriga meeshiisana heestu way buuxisaa fain kuntum laabudda faacilin haddaad taladeedaa qaadan weydaan aad imaqli weydaan oo kollayba aad heesaysaan fajanibuuhu nisaa waar dumarkiina ka ilaaliya ina alghinaa daaciyatu zinaa waayo heestu waa mid ku baaqaysa zinada oo fududaynaysa baaqi baa wariya fi shucab aliimaan heestu waxay qalbiga ka masaxaysaa maxabat lqur'aan kuma kulmi karaan qof qalbigiisa inuu heesaha jeclaado qur-aankana jeclaado inuu heesaha macaansado qur-aankana macaansado xub lqur'aani wa xubu alxaani alghinaa fii qalbi cabdillah yajtamicaan qur'aan jacayl iyo heesaha laxankooda in la jeclaadaa addoon qalbigii laba aan ku kulmahay weeyaan weligood ku kulmi maayaan wa abcadu naasi can lqur'aan dadka heesa ama heesaha dhegaysta qur-aanku markuu soo galana way iska baktiyaan
waayo qalbiga heesuhu dabooleynay madoobeeyeen hadday akhriyaanna qur-aanku u dhadhami maayo طacmu liimaan ayay waayeen wa min acdami maa yasudu can dikri illah wayushqilu can taacati araxmaan waa waxyaabaha u waaweyne dadka ka hor istaaga xuska ilaahay iyo ilaahay taacadiisa waxyaabaha addoomaha ka mashquuliya weeye dad baa waxay odhanayaan heestu waxtar bay leedahay rag waaweyn baaba oo dadku aqoon iyo cilmi ay bidayeen baa waxay yidhaahdeen waxaan hubaa ninkii hebela dhintay jannada inuu gelaayo yaa subxaan allah yaa u sheegay hebel janno inuu gelayo dadka ka u khayr badan haddii aanu daliil sheegin hadduu dhinto janno iyo naar meel uu gelaya inagu war uma hayno ka wanaagsanna khayr baynu u rajaynaynaa ka xunna waynu u baqaynaa talo muxuu janno ku gelayaa buu idhi ma salaad ma sawm ma xaj ma sadaqo badan ma inuu sharka iyo fasaada ka dheera waayo ma wuxuu ku gelayaa buu yidhi malaayiin dad uu quluubtooda u raaxeeyey muxuu quluubtooda ugu raaxeeyey waxa aad maqlaysaan bilghinaa ayuu ugu raaxeeyey heesuu quluubta ma u raaxeeyaan waxaan akhriyay nin yidhi anuu weligay xataa markaan yaraa maa kuntu uxibu alghinaa ilaahay baa subxaana wa tacaala iga ilaaliyey weligay hees maan jeclaan intaan shitayna maan dhegaysan mararka qaarkood baa dhici jirtay macallimiinta qaar iskuulka markaanu dhiganaynay haddaanu hadallo alifluhuna kiciyo inay idhahdaan waxa lagugu ganaaxa inaad heesto haddii kale ulbaa lagula dhacaya ushaan dooran jira anigu wa hada min fadli illaahi calaya heesaha nin aada u jeclaa ayaa wuxuu yidhi heesahan aad uga daba dhacay aayaadkii axaadiida marka lay sheego waxay odhan jiray wadaaddow buuqa naga daaya in allaha hafuurun raxiim aanu idinka raaxaysanee ilaahay baa mar qura qalbigayga ka jeediyey buu idhi dabeetana waxaan si dhaba u ogaaday buu yidhi qalbi inay u raaxeeyaanay dejiyaan oo murugo iyo warwar iyo dhibaato ay ka biyaan daaye intaba inay ku beeraan hal dhinac buu inaga tusa oo dhammaanteen aynu wada fahmi karno waa maxay dhinacaasi wuxuu yidhi bal aduu u fiirso oo heesuu inta badan maxay ku saabsan yihin ma wax qalbiga dejinaya mise wax qalbiga murugo gelinaya had ya jeer heesu waxay ku saabsan yihiin mashaakil ayay ka warramayaan iyo qof wuxuu jeclaa waayey iyo qof dhibaata ay soo martay ma waxaasaa qalbi dejinaya waxaase qalbi ma dejinayaan umana raaxaynayaan ilaahay dikrigiisa ayaa quluubta u raaxeeya waxay sabab u yihiin ciqaab adduunyo mid aakhiraba intaan la gaadhin ibnulqayim wuxuu yidhi waxaanu aragnay annaga iyo dadka kaleba oonu tajribo ku garannay haddii qolo ay ka dhex muuqdaan aalaatullahu qalabkan heesaha oo ay ku dhex faafaan oo ay ku mashquulaan ilaahay inuu ku sallidayo cadow wabuluu bilqaxdi waaljadbi wa wulaati suu waxaa kaloo lagu ciqaabaa abaar iyo madax xun maanta muslimiintu inta badan labada way ka cabanayaan wixii sababayeyna farahay kula jiraan maanta abaar baynu ka cabanaynaa iyo roob la-aan iyo kulayl iyo haraad magaalooyinkii miyi hadalkiisa daayo haddana magaaladeennii caasimadeennii ayaa heesaha dadka loogu yeedhayaa leekaalee dhagaysta hablaysa soo qaawiyey iyo inamo wada jaasaya oo wada heesaya waxaad maqasheen quluubta madoobeynaya akhrinaya markaasaa in la inkiroo la diido dowlad inay joojiso daa dadkiina xaggooda ay u dareerayaan waxaa laga yaaba qofka ka hadlaya in la yidhaahdo qofkaasi waa qof adag oo mutashadida ama qofkaasi waa qof seeflabooda in la yidhaahdaa laga yaaba saynu raxmadda ilaahay u rajaynaynaa iyo barakaadka samada iyo dhulka ilaahay inuu inoo furo innagoo ilaahay wixii ka cadhaysiinayay samaynayna cumar ibnu cabdilcasiis miyaanu odhan alghinaa mabda'uhu min ashaytaan asalaan shaydaan bay ka soo bilaabmaanoo dadka ku dhaqdhaqaajiya wa nihaayatuhu sakhatu raxmaan waxa ay ku dhammaadaanna waa cadhada ilaahay waxaan dhib adduunyada ka dhacay oo dhanna waa raadkii ka dhashay cadhada ilaahay subxaana wa tacaala shaydaankay soo jiidaan shaydaanku meesha codkiisu ka baxayuu imanaya wuxuu qariin la yahay uu ku ladhan yahay oo rafiiquu la yahay kuwa heesiya kuwa heesaha dhegaysta waxa shaydaan soo jiidayaana wax malaa'igta eryahaya
meel kasta oo dhawaaqa heesuhu ka baxo shayaadiin baa isugu imanaysa malaa'ikatu arraxmaana way ka fogaanayaan oo way ka durkayaan taqullaha yaa cibaad allah waajib waxay nagu amarka koowaad qof wala muslima naftiisa inuu ka fogeeyo waajib waxay nagu qof kastoo muslimiintu u taliyo inuu kala dagaalamo oo uu ka durkiyo waajib waxay nagu cidda heesaysa ama dhagaysanaysa ama dadka ugu baaqaysa inaynu ka waanino cidda leh hudheelada iyo hoolasha la isugu imanayo ee munkaraadka lagu samaynayo allaha khaaliqayna abuuray lagaga cadhaysiinayo waa inaynu la hadallo weyi oo aynu la talino oo aynu u nastaaxayno ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda aynu dhahno ogaadana qofka dadka heesaya ama heesaha dadka baraaya maanta heesaha la barayaa dhalinyarteennii si akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo diintooda loo fasahaadiyo qofka heesta baraaya qofka ee lacag ku qaadanaya ka kiraynaya ka heesta ka kiraynaya dadka heesaya gurigiisa hudheelkiisa hoolkiisa ka heesaya lacag ku qaadanaya dhammaantoodba waxay cunayaan waa suxti iyo booli waa nabi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha idaa xarama shayan xarama thamana ilaahay shay hadduu xaaraantimeeyo wuxuu xaaraantimeeyaa wixii ka soo baxa marka la iibiyo ama la kireeyo soomaaliduna waxaa hadalka ama arrintaasi ay ku cabireen hadal xikmada waxay dhahaan hal booliyi hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho se iyadoo xaaraan u tahay ayaa wixii ka soo baxayna xaaraan waxa weeyaan uu noqonaya taqullaha yaa cibaad allah xidigaheennu waayo xidigaheennu waa yaa cibaad allah xidigaheennu waa saxaabadii rasuulka yaa inoo sheegay taa nebi maxamed baa inoo sheegay qaala calayhi salaatu wasalaam النجوم أمانة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى أصحابي ما يوعدون حدقوه وحي علامة يهين نبت قال يقول كيني كتيرتو قيامي معنا ندعهين مركي حدقوه داتان حدقوه مركي أي داتان إماشا أي كبحان ومضى إذا وحاو إيمانا يأتى أمتي ما يوعدون وحي الله يبوها يو قيامه وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أصحابتي إذا مركي تقان ومضى إذا وحاو إيمانيا وحي الله يبوها يو فتن يخرابا وصحابة رسولك عليه الصلاة والسلام هل قد إذا يعني عدك لحدق الله قدقان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.